asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibada qiimaha badan ee ku xidhan janaalka Bayjoog soo dhowaada waa mar kale iyo muuqaal cusub. Haddaba muuqaalkan waxaan ku falanqeynaynaa musalsalka walaalaha xalqadiisa 34. maxaa dhici doona gooskooska labaad ama maxaan ku arki doonaa xalqada soo socota waa xalqad seeya. ma runbaa inay dhimatay Nibhaad? ma runbaa in ay dhimatay Emeel Tiyareed? qodobadaas iyo qodobo kale ayaan ku eegnaa muuqaalkan. fadlan muuqaalka like saar, sidoo kale janaalka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar. saan wada ognahayba xalqadii u dambeysay meeshii ay naga go'day waan ogahay, kadib markii Orhaan uu islaantii Nibhaad hay tuuray asagoo iska fujinaya, islaantuna ay ka soo dhacday kollejka dabaqiisa sare halka ay markii u dambeysay ku soo dhacday dhulka. ma laga yaabaa in ay Nibhaad dhimato? dhanka kale gooskooska 34 haddii aan faaleer ka bixinno, inkastoona muuqaal ka soo sameynay gooskooskaasi, haddii aan faale ka bixinno gooskooska waxaan ku arkaynaa Emeel iyo dabcan Aasiya imaaday. waxaan filayaa Aasiya gurigaasi ay imaadeen iyaga iyo Cumar waxay u imaadeen in Aasiya kula ka shaqeyso Cumar oo caawinayay, halka looga shaksan yahay gurigaasi in ay ayaga soo degeen. laakiin gurigaasi waxaan filayaa in kaliya shaqaale ay ka ahaayeen, laakiin nin iyo naagta ee dhahaysa waa kuwan waa ay joogaan. waxaan filayaa in kaliya Cumar la raadinayay. wixii intaa ka dambeeyay Cumar gacanta waxa ku hayay qarurad, ninkana waxa ka shakisanaa qaruradaas inuu Cumar ku dhufan doono oo asaga ku dhufan doono. ninkana isla si degdeg ah wuxuu la soo baxaya baskoolad. Cumar waxa ku leeyahay waan ku bariyaa ridin, laakiin Cumar ayaa sameeyay dabcan degdeg. ninkiina waxa dhacday inuu gacanta ka qabto. markii uu gacanta ka qabtay xabad ayaa dhacday, Cumar gacanta uu ku hayay. tan ugu xun ayaa waxay tahay Emeel ay xabad ku dhacday horta la socda gooskooska intaas uu geeyay. tan ugu xun ayaa waxay tahay lacag haddii ay Emeel xabadaasi ku dhimato waxa sabab u ah ayaa la leeyahay Cumar maadaama sa gacanta ku sugahay, halka la filayo Emeel ama Nibhaad in ay mid uun dhiman doonaan, midda kalena ay badbaadi doonto. saan wada ognahay laba bilood ka hor xasuusteen muuqaal ayaan ka sameynaa aan lahayn Emeel iyo Nibhaad oo dhiman rabaan. akhbaartaas xilliga ay noo sheegeen runta macquul ma aha, iyo fogida iyo xilliga soo boostigariyeen ayagoo nagu leh laba shakhsi oo muhiim ah ayaa xalqadahan soo socda dhimanaya. haddii aan xalqadaha idin xasuusinana waa markii aan soconnay xalqada 22 ilaa 23 ilaa 24. marka hadda ay tahay 34 ayay dhimanayaan, aqlina ma aha. xilliga akhbaarta noo sheegeen runtii macquul ma aha, waa ayna fogeyd. marka xalqada soo socota kolley waxay la tahay mid ka mida uun in uu dhiman doono, laakiin xalqada soo socota ani ahaan waxay la tahay in ay meeshaasi joogi doonaan. horta Nibhaad iyadu waxay ku jiraysaa isbitaal inta hore oo dhan, laakiin gabadhan Emeel xalqada soo socota waa meesha ay naga dhamaan lahayd. Kaardaslerim ama musalsalka walaalahay waa lagu yaqaan dhaqankaasi ama in inta ugu xiisaha badan ay ka dhigan dhamaadka. waxaan idin sheegay xalqada u dambeysay ratingkeedu wuxuu haruntii rating kala kacsan. waxaan filayaa doorkan in aan ku soo laaban doono kaalinta labaad, laakiin kaalinta saddexaad ayaan joognaa. laakiin kor u kac ayaan u sameynay maadaama ay musalsalka hawlgalka sirdoonka iyo musalsalka cadaaladda ay kor u soo kaceen, booskanina ay yimaadeen. annagana 10.45 ayaan total ahaan keenay. marka waxaan filayaa doorkan in aan kaalinta labaad galno, inkastoo la soo boostigariyay kaalinta saddexaad aan weli ku jiraba. laakiin musalsalka Cusmaan oo Khamiis soo baxaya ama Arbacada maalinta Arbacada habeenka maalinta Arbacada ay waxaan filaynaa kor uga kacano maadaama isugu 10.8 yahay 10.45 asagana hoos u dhaco xalqada kale. haddaba haddii aan si wadano falanqaynteena dhanka kale Nibhaad iyo Emeel haddii ay dhintaan maxaa dhacaya? murugada Aasiya iyo dabcan Cumar sidee noqon doontaa markay Emeel dhimato? maxayse uga saareen gabadheer Emeel? waagi hore waxaan uga shaksanay in Emeel uga saareen caajiska kaamirada soo istaagaynin, haddana isla sidii uun waayay Emeel wax ay musalsalka ma jiro, dhibaato ma qabsato, way iska joogtaa uun marmarba sala bahdaa. waa tu yar doorkan waxay qaadatay gabadha ugu yar atirisada ugu yar oo ugu shidan ama atirisada ugu jilinka ficneed qaybta yarida ay qaadatay. kolley sabab u saaran waa iska tahay, haddana saas ay tahay Emeel wayna macsalaaminaysaa. Nibhaad sababaha looga saaray maxay tahay? saan wada ognahay waxaa lagu soo daray gabadh cusub oo lagu magacaabo Ayla. doorkeeduna waxa uu yahay waxay jelaysaa beerka hooyadiisa. sidoo kale Rasuul Oskaya xaaskiisa weeye. Rasuul Oskaya ma laga yaabaa asiga Susan in ay soo dhaxmareen wax hore, Rasuul Oskayana uu yahay aabaha Cumar. waan ogaan doonaa xalqada soo socota. sidoo kale Rasuul Oskaya iyo Susan ma laga yaabaa hadda inay soo socdaan ilmaha hadda korin wax soo dhaxmaray, sababtoo ah hadda say isku yihiin wad u jeedaa. haddaba
Rasuul Oscar iyo Susan way saaxiib doonaan. Susanna san hore ku sheegnay waa tabixis lacagtii Suuse u keentay gacanteed lacagteedii markaas qoftan faqri waa turtay kaliya waxa dhunguriyaha gurigan dhaawac ku soo gaaray email waxa laga shakisay inay Susan u iibisay guriga ama ay joog ku tiri hadaba odayga Orhanaha ayaa laga walwalsayay odayga Orhanaha halkuu ku dambeeyay saamad ogna Orhan wax walba uu ogaaday haddana waxa la taagan yahay xilliga wax la fashilin lahaa haddii Orhan wax og yahay maadaama xafladda Umar joogay Aasiina ay joogtay muxuu u sheegi waayay intuu hoos u soo dago mis Orhan la gabigiisa waa la khariji sababtoo Umar waxa arkaynay in asaga walaashiisa iyo Emel una meesha dhaawac ku soo gaarin ay ahayd guri kale oo xafladii ahayn marka durbasay xamaasadaas urigan waan xalqadii ugu horeysay aabiisi kulay maadaama ogaado qofka walaalkiisa dilay soo macnaha meelaas u baashaalayaan marka waxaan filayaa Orhan in loogu hanjabay maadaama ay nabad dhacday in uu soo waxba sheegin xabsiga la geyn doono hadaba Orhan haduu saa ku aamuso Umar muxuu sameyn doonaa sidoo kale daawada waxa la socotaa Shanguul inay og tahay odayga waliha qaabkii uu ku dhintay ninka dilayna way og tahay waxaana laga dhadhacsiyay in waxaan oo dhan warshil ahaa sidoo kale arinka qadiir waxa laga dhadhacsiyay in uu shilaha hadaba xaaladda saxda ah ku dambeyn doonta wax walba waxaan ogaan doonaa xalqad soo socota iyo gooskooska iyo macluumaadna aan sugayno hadaba Suuse ayada maxaa dhici doona ma laga yaabaa in ay ka badbaado arinkii shilka ma laga yaabaa in la dhaho ayada wax dambiya male saawad ognahay xalqadii u dambeysay kan waxa uu sheegay in Suuse lamaana yihiin waxayna dilayaan in ay lamaana yihiin Suuseena hadda arinkaas kama baxsan karto ilaa ma arinka qadiir ay sheegto ayna tiraado waxaan u dhajilinayga hayd kan xoribina arinka qariyo sidoo kale marka ay maqasho qoftan lagu magacaabo Aasiya marka ay maqasho in dabcan walaalkeeda ay dismanisa ma laga yaabaa eed iyo Dooruk in uu xiriirkooda halkaas ku dhamaado waa macquul sida loo badinayo oo kaliya waaye waxa la sheegayaa in ay macnaha u dhamaan doonto halkana laga iloobi doono ma laga yaabaa xalqad soo socota warbixinada uu horeeyay waxay tahay xalqad soo socota waxa la filayaa in dhiman doonto qofta lagu magacaabo Suuse marka muuqaalka xiga ayaan insha Allah taala arinkaas uga hadli doonaa arinka Suuse laakiin muuqaalkan waxaan uga hadlaynay nabahaad iyo email كلنا هذه إيميل حالة كل سجينهين ولا هرنت وايس كعلوس تهاي مسلك إن لقى صار هذا ما في عنا واجي معقولة هاي لكن هذا من دقة لقى صار لوضع لقى صار أيوه الملايح نوايا مركا فكر كاج وحنا نقوله ذاك تبنكم تيجي واحد كام سنة هاي يو هدي أربتين سيتشو كان يهدي أربتين مع إسلاميا تحصلنا نلاقي كانوا هذا وحنا نشجع نسكريع عصوم اللي صدر الدانو لكن وقته جوا قارما والله مش شيء كرر بحس كده هنا بلود كبعدي كاردترنا ولو يقنا بلان كباح وحيالو وحيال أن لفلينين مركو حنك عسنين موقع خليك سارتي سيدا كلا دادنا لكو عسو سكراب سارتيد جنال كان بيجوك وحن كسو قد مدورنا لمان مسلسلة خالد دراما ما دام المسلسل يبدين هذا كان يكسو قد مدورنا لكن المعلومة هو رسي مسلسل كلاوي عقل بيجا كان كله أيان أخبار كيس كسو قد مدورنا مسلسل كلنا بلا بنا للسعودة مرة سبسكرايب سار جنال كسو كلا لايك سار وما سنتهي